بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan barnaamijkan kooban ku soo qaadanaynaa mid ka mid ah barnaamijyada sida tooska ah noloshaada u taabanaya ama saameynta noloshaada kule sidaad la wada socotaan iminka waxa qaali garoobay dhulka sidoo kale waxa qaali garoobay dhismayaasha guryaha taasoo keenaysa qofka dhalinyarada ay si kasto u dadaalo hadduu xitaa maanta shaqaysto inay ku adag tahay inuu guri dhisto jagadii waa qaali guriga dhismihiisina waa qaali su'aalo ayaan weydiin doonaa halkan nin kamid ah qolyaha dhismaha waa injineer Cabdifataax marka waxaan weydiin doonaa bal su'aalaha taabanaya nolosha dadka ee ku saabsan dhismayaasha marka ugu horeysa Cabdifataax soo dhawow su'aasha koowaad aan ku weydiinaya wax weeye marka aad wacyiga eegto maanta da'dan aynu joogno marka abayaashin da'dan oo kala joogeen sida aynu shaqaynayeen inay guriga dhistaan iyo inay jogooyin iibsadaan way u fududayd laakiin maanta dadka dhalinyarada ay da'deena si xitaa shaqeeya way ku adag tahay inay guriga dhistaan sidoo kalena ay markaa jogooyin iibsadaan maxaa isbedelay su'aasha hadaan isku dayo inaan ka jawaabo waxa jira mashaakilaad badan iyo problem aad u badan oo dadku ay la kulmaan dadka customerska ee wadanka wax ka dhisanaya sababo badan baana kooskareeyo keenay inay dadkii wax loo dhisay mashaakil aad badan la kulmaan qofku markuu siisa wax dhisanayo inaga wadanka inta badan waxa dadku inta badan sameeyaan oo ay inta badan awood saaraan inay lacagtii u baadi doonaan lacagtii wax ku dhisan lahayn baadi doonaan laakiin muhiimad badan ma siiyaan guriga iyo cidii fulin lahayd iyo soo fulin lahaa iyo nashqadaha iyo nidaamku doonaya siday noqon lahaayeen kaliya qofku isagoo lacag buuran sita buu tagaya xafiis buu tagaya shirkadeed tusaale ahaan qofkii dhalinyarada ahay maanta adigu injineer baa tahay dhismihii ka shaqeeya garanaya dhismihii iyo waxa kaga baxaya qofka dhalinyarada ee maanta qarniga nool ee shaqeeya ama dawladda shaqeeya ama private ha shaqeeya mas'uuliyadda gurigu maanta dhisan kara horta wadanka iyo xaaladda wadanka waan ka warhaynaa inta badan waxa loo dhisaa waa ganacsato iyo qof wadan shisheeye ka soo shaqaystay majority way jiraan dad wadanka jooga oo wadan ka shaqaystay oo dhalinyaro ah oo hanti leh laakiin qiyaas ahaantii boqolkiiba xataa 6 ma aha dhalinyarada wadanka ka shaqaysatay hanti ma guuraan oo guriga ku leh mushkiladana waxa keenaya dhowr problem baa jira dhowr mashaakil baa jira ha ugu weynaato xagga kooska guriga ku kacayo oo runtii mararka qaar qofkii laga qaadayo wax laba guri u dhisi lahaa hal guri lacagtii laga qaadayo taana waxa keenaysa qofkii inaanu u duurgalaynin bal horta dhismayaasha iyo nidaamka wax loo dhiso oo aan wixii isagoo aan xog buuxda ka haysan markiiba waajahayo shirkad wax u dhista waati koobaad horta sixir barar dhanka dhismaha baa jirta oo dadka wax dhisa ay sababeen iyagu oo aan qiimo fixed oo aan wadanku lahayn wax code la yiraahdo jira dunida la isticmaalo code-kaasi wuxuu xadidaa oo la raacaa oo qaanuun sharci ah waa qiimayn code-kaasi wuxuu ku jaan go'an yahay shay walba qiimo gooniya dawladdu sameynaysa oo limit aan laga gudbi karin in nasiib daro inagu code-ka ma lihin qofka doonaya inuu wax dhistaa qiimaha la qiimihii doonaa loogu dhufanayaa waxaan la soconaa in dhulkii ay ahayd in dawladdu gacanta ku hayso imika dad shicib gacanta ugu jiro taas uu qaaliga qayb ka noqonayso sababta su'aasha ku weydiinaya waxa weeye qofkiiba guri dhisanaya lacagtiba ku filan waaysa haddana gurigiiba dilaac sameynaya haddana guri problem kale u keenaya haddana waxa laga yaabaa quality wixii aad ku shirkadii ku heshiiseen oo kale wax ka tayo jaban in lagu geliyo haddana murankii waa badanaya marka bal waxaan doonayaa dadka ku daawanaya kuwa doonaya inay guriga dhistaan iyo kuwa guriga imku soconayo iyo kuwa guriga dhistayba ee caqabadahan la kulmeen maxaa loo baahan yahay oo steps baa la doonaya eeg tusaale ahaan talaabada inuu qaado maxay tahay talaabooyinka ugu muhiimsan ee loo baahan yahay markuu qofku guri dhisanayo inuu sameeyo si uu uga badbaado lacag fara badan oo qofkaasi lagu soo dalaco at same time-na gurigiisina uu guri badqab noqdo tayo wanaagsan oo dhismuhu inuu consultant yeesho waa mid waajib ah aan marnaba la dhaafi karin consultant-kaasi wax yaro fudud uu qaadan karaa waana la heli karaa dhalinyaro badan oo wax baratay oo aqoon fiican
ka haysata dhismihii consultantka markuu u tago waa in la jaangooyaa horta dreamka qofkaasi wuxuu doonayo gurigu doonayo sidoo wuxuu doonayo qolaalkiisu noocay doonayaan yacni qofka niyadiisa waxa ku jira waa in marka loo diyaariyo marka fulintoodii la galaa dhisaynkii nashqada uu qofku doonayo waa in cid la jaangooysa uu helaa waa marka labaad guriga qiimihiisa lafaha guriga ku baxaya yaan koskii ahayn faa'iidada ahaa waa inuu jaangooya consultanku u jaangooya yiraahdaa gurigaaga waxaas ku baxaya uu ogaada qofkii intaanu shirkadda tagin gurigiisaas lafihiisa waxa uu ku dhismaayo ta saddexaad materialka guriga galaya ashyaada guriga galaysa waa in uu xadidaa one by one waa in uu xadidaa qofka consultanka ay u tagay wax walba guriga galaya tusaale ahaan sibidhka siliiga marmarka wax kasta oo guriga galaya waa inuu u kala qaadaa shay u kala qaadaa oo waliba shayadaas oo la dabaqinayo sharci ahaan oo la qorayo oo marka afraade waa in uu sameeyaa faa'iido ahaan waxa qiimo macquula oo yacni stable oo fadhiya oo shirkadu ay ku qaadan karto maxay toolay guriga heshiiskii oo dhameystiran markuu diyaariyo haday tahay qiimeyntii dhisaynkii guriga iyo nidaamkii uu noqon lahaa wax kasta oo guriga galayay oo lagu la xisaabtamayo shirkadda lagu la xisaabtamayo waa inuu isagu diyaariyaa tusaalahan qofkii consultantka marka gurigii aad consultankii guriga kala taliyo shirkaddii guriga u dhiibto maxay noqonaysaa isaga doorkiisu waxay noqonaysaa shirkadii waad u tagaysaa adigoo faylkaaga dhameystiran sidaad u tagaysaa inta badan mushkiladaha dhaca waxa weeye qofku shirkadii uu tagay isagoo wax xalaal ah u diyaarsan jiray guri baan doonayaa buu oranaya in la dhiso cabirka dhulkiisa uu sheegaya nashqadii isugu doonayay nashqadaan ahayn baa loo diyaarinayaa ama guri hore ay u dhistay shirkadu ayaa la oranayaa kaasoo kale aan ku dhisaynaa qiimeyn uu gurigiisan og yahay wax ku baxaya ma jirto shirkadii iyada jaangoosanaysa oo qiimihii iyada sheeganaysa ma gorgortan ma geli karo sababtu tahay ma ogayso waxa gurigiisa ku baxaya oo qiimeyn hore muu sameeynin waa saddexaad materialkii kama warhayo qalabkii agabkii guriga lagu dhisayay qofkii doorasho u malaw ma garanayo cidna kale ma soo talin marka shirkadii waxay ku qasbanaanaysaa inay iyada qiimihii jaangoosato nashqadii u samayso materialkii guriga galayna iyadu cala kayfiyatak waxa la waxay doontaa ay u geliso okay halka adigoo socday imka tusaalahan markuu qofkii consultant uu marka xiriir la sameeyo consultankii nashqadii soo sameeyo consultankii intee leeg buu qofkii la soconaya consultantka marka uu formka u diyaariyo qofka dhameystiran shirkadii marka loola tago hatta wuxuu diyaarinayaa consultantku waa inuu diyaariyaa stageska marxaladaha gurigu kolba halku marayo iyo qiimeynta lacageed oo lacagtii face by face loo bixiya mashaakilaadka badan ee jira ee wadanka ka dhaca waxa kamid ah qofkii lacagtii oo dhameystiran buu wada shubaya haddii hadhow isqabsi yimaado meeshii heshiis ma yaal waxa laale wax doorasho ah oo qofkani la yimi ma jirto wax diyaarsanaan ma jirto mar walba waxa dhacaysa in qofkii isagoo xaq lahaa xaqiisa la duudsiyo oo shirkadii marka consultant haddii aad samaysato tusaalahan lacagii face baa loo bixinayaa marmar lama shubayo face baa loo bixinayaa lacagtii shirkadda face baa loo bixinayaa waliba waxa lagu jaangooynaya stage-ka gurigu marayo tusaalahan gurigu markuu kaco 2 mitir markuu gurigu kaco waa inuu consultant-ku hayaa qiimaha 2 mitir ee gurigu kacay wuxuu noqonayo waa in marka la isku jaangooyo lacagta face-ka hore iyo guriga wax qabadkiisa la isku jaangooyo taasi waxay faa'iido keenaysaa hadii la isku hor yimaado oo waxyaabihii quality-ga halkan iyo heshiiskii la galay shirkadii ay ka baxdo in si fudud shirkadii la yiraahdo face-ka lacagtiisa waa naga haysay waan ka joojinay shaqadii marka la wareego faylkii uu laga qaato oo marka shirkad kale lagu wareejiyo laakiin qofka hadii lacagtii uu guriga dhameystiran hayo cidina lacag isu soo celin mayso sharciga nidaamna aad martayna ma jiro marka consultant-ku wuxuu daawo ka yahay isqabsi kasta iyo quality-ga guriga oo xumaada iyo dareemkaagii iyo niyadaadii wixii ku jira aad doonaysay oo uu ku suurtageliyo oo kaaga warhayo waanay wadanka way ka jirtaa wadanku ma lahayn markii hore shirkado consultant ma lahayn oo dhisaynadana sameeya systemaadka iyo nidaamyada ku shaqeeya ma lahayn shirkadda ugu weyn ee wadanka joogta waa Rio Architect kobaca wadan ee dhismayaashu aad buu kacay intii shirkadaasi wadanka timi niman aqoon geliyay wadanka oo nidaamyo sharciga caadiga ah dunida ka jiray
halkan ku dabaqay weeye mashaariicda ugu waaweyn ee Soomaaliland laga fuliyayna iyaga boqolkiiba 95 u consultalo oo okay way adigu waxaad consultant sidoo kalena engineer dhisma ayaa tahay ma muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee doonayeen wax dhistaan adigu adeega ma u qaban karaysaa tusaalahan kala taliso inaad u jaangeyso inaad dhisankii u sii samayso in ilaa inta gurigaasi dhamaanayo aad mas'uuliyadda qaado consultantka adigu inta ma awoodi karay farxaanow runtii aniga iyo inta midka ah ee jaamacadaha wadanka ka baxday ee khibradda fiican u la dhismaha shaqada iyo mid ka badan bay qaban karaan muddo anigu waan kusoo dhex jiray shaqada waaweyn waan la soo shaqeeyay dhalinyaro badan oo ila midaba jirta dhibka jirta waxay tahay qofkii markuu hantidiisa hurayo uu meel doonayo inuu wax iska geliyo inaanu muhiimad badan basiin in wixii shirkadii uu siiyay kula xisaabtanto mashruucii waxaad arkaysaa guri yar oo guryahan yar yar ee magaranaysa ee bangalooyinka xataa kuwa laftooda consultant u baahan yani xataa in la xadido timeka schedule loo sameeyo xataa la xadido timeka gurigani soconayo la jaangooyo oo maalin walba waxa la qabanayo ay cadaato marka halkaas su'aal baan doonayay inaan ka weydiiyo tusaale ahaan oo kale qof kaba soo qaad guri baad consultant iga tahay dabeetana lacag baa guriga ku baxday shirkad baan la heshiiyey aniga commission baad iga qaadanaysaa shirkadii dhismaha ka waran hadii iyada commission ku siiso taasi ma suurta gasho oo yani wax walbaaba waa kuwa halkan ku caday qoran qofka wax dhisanaya laftigiisu wixii loo diyaariyay isaga gacanta ku haya koobi buu kala hadhaya marka qofkan consultant-kana wuxuu u dhaxeeyaa shirkadii iyo qofkii customer-ka ahaa wuxuu xadidayaa ilaalinaya un heshiiska meesha yaala ilaa 1950 ilaa maanta qaabun baad u xidhistaan oo dhismuhu horumar ma sameeyalka dunida kale uu horumar sameeyo qiimii un baa si dalacmay laakiin dhismihii horumar ma sameynayo shantii qol waa shantii qol 60kii ama 50kii la dhisay materialkuna waa kuwi dunida kale laakiin maalin walba dhismuhu tadawur buu sameeynaya oo meelaha qaar koodii imika guryaha $5,000 baa lagu dhistaa halka idinku 45 ku dhisaysaan maxaa idinka haystay inaad maskaxdiina u furweydeen oo dunida ula jaan qaado 30 sano Jamhuuriyadda Soomaaliya jirto isbedelka dhismuhu 8 sano ugu dambeeyay waa laga yaabaa wax aad u badan inay isbedeleen weli way jiraan shaqado waqtiyadii hore lagu shaqeyn jiray hadda weli la fuliya sababtu waxa weeye inta badan bulshadeenu lama jaan qaadin systemkan constructionist-ka ah ee sharaa'iga ah shirkadaha wadanka boqolkiiba 80 ama 90 waxa wax dhisa waa foreman nin wastaad oo dabeetana stage-ka wastaadnimadu ka gudbay foreman marka formankii aqoon jaamacadeed male design system waxaan wax ka duwan ma keeni karo isagu wuxuu ka cabir qaadanayaa waxyaabihii hore ee isagu uu la soo qabsaday oo hore gacanta ugu soo fadhiisiyay boqolkiiba 90 waan oran karaa wadanka dhismayaasha ka dhacana iyaga nimanka formaninta baa fuliya mushkiladuna waxa weeye engineerskii wadanka ayaan weli ummadu aanay fahmin waxa ay yihiin iyo waxa ay fulin karayaan okay su'aasha kale ku weydiinay waxa weeye guri tusaale ahaan qaali oo lacag fara badan ku baxday ayaa haddana waxa gubaya dab yar oo laga yaabo in mobile ka kacay oo dabadna gurigii baabiinaya marka guriyaha dhisaysaan ma kala tashataan dibdemiska ama ciidanka dibdemiska ama dadkan dabka takhasus leh si qofkii hantidii faraha badneyd uu geliyaan si yar oo fududaan dab u gubiyo walaalo farxanow waa su'aal loo baahan yahay in maxay toolay in ka jawaabno way jirtaayo qolo fire baa jirta oo wadanka joogta oo shirkada tusaale ahaan haddaan kuu soo qaato gurigan weyn ee Dahabshiil Damal iyo labadan guri ee kan imika aan gacanta ku haynay museumka iyo gurigan weyn ee Telesomta intaba systematically waa lagu sameeyay oo qandaraas baa lagu siiyay in haddii dabdhaco xataa jinnadii waaweynaa ee hawada dalinayay ayaa jira fire-ka ah waxa hoose ugu base garaysan marka waxyaabahan kuu sheegay aqoontu imika bedeshay ee aynu kula jaan qaadayno dunida imika aynu maxay toolay hadda aynu inagu iba furu noqonayaan hadda bilaabayna weeye marka maalin walba meel baa laga dhaqaaqayaayo meel baa la gaarayaa marka
marka taasi way jirtaa. adigu dalkan iyo dadkan aad ku baratay wadna ka shaqaysataa waxa jira dad danyar oo laga yaabo inay dhismayaal dirqi ku wadaanba oo ama de mushahar yar qaata ama dawladdu shaqeeya ama de suun dadkaasi aan awoodi karin lacagta consultant-ka ee dhismaha adiga ma ku qorshaysan tahay inaad haddii dad aad lacag ka hesho inaad dad kale caawinto farxana waan sameynaa anagoo shaqaale ah oo ma garanaysaa si iskayo bareefadan u shaqaysanaa companina u shaqeeya haddana boqolkiiba 80 waan odhan karaa inaan la talin buuxda siiyo wax alaale wixii aan ka caawin karayo aan ka caawiyo hadday tala tahay hadday nidaam tahay haddii systemkii wax u dhisan lahaa iyo qiimeynteedii hawsheediiba ay tahay waana waxtee aanu ummadda doonayno inaan hadda fahansiino ay ummaddu wadcigeedii hore iyo kan dambe ay kala ogaato halkay joogtay waxaana xadidmaya oo imika soo yaraanaya oo la fahmayaa qandaraasyadii iska ahaa iskaga dhufada yacni guri laga dhisayaa ama lacag hal guri dhisi lahayd laba guri dhisi lahayd hal guri qandaraaskeeda lagu qaadanaya waxyaabahaas oo dhan waxa imika laga hortagay systemkan consultant-kan iyo khibradahan dambe ardayda iyo dalka wadanka u dhashay soo kordhiyeen ay ka mid tahay marka way jirtaa taas injineer Cabdifataax waa dhalinyaradii Soomaaliland buu kamid yahay ee dalkan iyo dadkan wax soo baratay barnaamijka horta waraysiga intaas ku soo koobayna sidoo kale waxa rajaynayaa telefoonka Cabdifataax sida shaashada ka arkaysaan wuxuu ka caawin doonaa dadka danyarta ah iyagoo aan awoodi karin inuu dhisanka u sameeyo sidoo kale dadka kale ee doonaya ama dalka dibadiisa jooga ama wadanka gudihiisa ku sugan ee u baahan iyaga laftigoodu inay wax tala bixina ka helaan dhismayaasha dhulka waxyaabaha la xidhiidho oo dhan Cabdifataax waxaad kala xidhiidhi doontaan telefoonkan idinka muuqanaya sidoo kale cidii talo ku soo kordhinaysa haddaad joogto wadamo horumaray haddaad dhismahaad khibrad u leedahay haddaad si wax ugu soo kordhin kartaan iyada laftigeedu hanaankan Soomaaliland ee wax u dhisayso waxaad ku soo kordhinaysaan insha Allah Cabdifataax halkaas telefoonkiisa ka arkaysaan barnaamijkan wixii kale ee aad talo haysaan ama tusaale haysaan ama waxyaalaha kale aad isleedihiin waxba inoogu hagaagaya maadaama dhulkiina qaali yahay dhismihiina qaali yahay wixii talooyin aad haysaan isleedihiin caqabadaha waa laga gudbi karayaana comment hoos ayaad noogu soo qori doontaan barnaamijkan intaasaan ku soo gabagabaynaynaa